bandhig faneed kor loogu qaadayo hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar. Xabiibaladan Cabdi Ibraahim ayaa warbixintan Qardho inooga soo dirtay. kasoo qaybgalida munaasabadan ay u badnaayeen dhalinyaro waxay ahayd mid afar kamid ah abwaanada gobolka Karkaar ay ku soo bandhigayeen suugaano kala duwan. Madasha barnaamijkan uu ka dhacay ayaa lagu soo xardhay alaabta hidaha iyo dhaqankeena Soomaaliyeed. Ugu horeynba warsame macallin Cabdi oo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka Karkaar ayaa daafuray bandhig suugaaneedkan. barnaamijka laga hadlayo barnaamij fareed waa wax wanaagsan haddii si fiican loo qaato. barnaamijkan waa inoo furan yahay. abwaanada ayaa goobta ku soo bandhigay suugaano ka hadlaya sooyaalka hidaha iyo dhaqankeena. xujaydii qoryacad iyo kaambada xusuusta leh xaafadaha Puntland xujadooda yaa furi Qardho waa xil weyn tahay waana xeerin badan tahay xogtii waxbarashada iyada xambaartay xakiimkaana siiyay xumaan mayso weligeed indhawayd basin layda gabay waanigaan sixine sidrigayga waanigii ka jaray sabka feerahay aan idin siiyo kiyaan hurdada saxanka riwaayay baruqyada wiile bedelka iyo calafkan aqaanba iyo lankeeda alayay hoyaalayay 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 hoya bayaanka islaanow ninkii biya waliye waxaan kugu ballaysimay murtida barashadaadii anaan badiriyo ku akhriin balcalan daraaqe indhawaydhaadii gabay baryahan waanigan dhihino dhahoodu ima qaadino mandhab qaalaweyne dhadigiyo haweenka u filay waa dhabcalbaani iga dhowra gabaygaygu waa dhemaniyo loo waa jacaylkan u tandhaaf dadaalo tafaraaruqii dhacay adigaa ku talagalay tacabkiiyo xidhiirkii markii aad ku timatay arikeeni taab jabay waanigii tanaasulay bisnaxiisa tabashada qalbi kugu talnaabaa kaa tallaabi waayo taga weyd ruuxdaad u ahayd la taliya ka tag horme qayrkay wiiqmo ka tabaryari sidaad ii tabcaysana tacadaan ku noolahay tayashadu naftayduna tahan iga fogaaday sii tiigso leedahay ma nastoo taraag baa taartaydi feento fakar bay ruux tagay markii aan tabcaamay isku tiirsho gogasha tirabeel xasuusa aadid bulay tusaayo maalmihii tognaamaa tuslay horkeena macallin Nawaal Axmed aadan Cabdullaahi Dagaashe Ismaan Cabdi Nuux Shaayf Yare Muna Cabdi Nuur Jaamac Xaawa Axmed Dayib waxay ahaayeen dhalinyaradii barnaamijkan qabsoominteeda fikirkeeda lahaa. barnaamijkan oo dhalinyarada ujeedka ay ka lahaayeen ay ku sheegeen soo nooleynta hidaha iyo dhaqanka soo jireenka ah oo si dabar go'aya waxayna xuseen in bandhigan uu noqon doono mid sanadkii mar ay qabtaan. wasiirka maaliyadda dowlad goboleedka Puntland Cabdullaahi Saciid Cashi Dhaqaaje taliyaha qaybta gobolka Karkaar gaashaan la sare Axmed Yuusuf Muuse Jaqanaf Faadimo Cumar Xuseen oo ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Karkaar Abshir Maxamed Cabbaas taliyaha saldhigga degmada Qardho waxay kamid ahaayeen mas'uuliyiintii lagu casuumay ka soo qaybgalida barnaamijkan waxayna bogaadiyeen dhalinyaradii barnaamijka isku xilqaamay iyo qiimaha uu leeyahay suugaan ku saleysan dhaqankeena loo muujiyo dhalinta maanta. xaqiiqda waxaan oran karaa arrinna tani waa arrin ummadda Soomaaliyeed waliba jiilka soo kacaya dani ugu jirto innagoo dhan danina ku jirto suugaantii iyo afkii Soomaaliga afkii hooyo oo la noolaynayo waa ku faraxsanahay intii hindistay barnaamijkan waxa leeyahay arrintan ha ka daalina dhalinyaro ina arrintan macnaha abaabushaaniin hidaha dhaqanka Soomaaliyeed inay hormaraanin in saxafiyiinta iyo ilaahay waa ku riyahay iyo dadka abwaaniinta maalin kasta jadwal loo sameeyo maalin sameeysan la diyaariyo dowladana waxaan ka codsanayaa hadda wasiirka maadooda kala joogo in loo sameeyo aqal weyn oo macnaha gurigan wayna ka weyn oo hidaha dhaqanka Soomaaliyeed oo magaalada macnaha Qardho waxay tahay magaalada dhaqanka Soomaaliyeed waa bandhig suugaaneed in la xuso dhaqanka waa aad bay fiicantay maadaama aynu nahay xarunta dhaqanka ee Soomaaliyeed waa ilaahay mahadi in maanta hooyga dhaqanka Soomaaliyeed ee magaalada barakeysaneed Qardho maanta abwaano dhalinyaro ah codkar ah xigmad ilaahay siiyay waxa way qof kasta ma gabiyo ama tixma tiriyo waa wax laba qaybood weeye inuu u helo dhaxaltooyo heredity iyo inuu u helo wax ilaahay hibad ilaahay siiyay
magaalada Qardho oo xarunta dhaqanka Soomaaliyeed ayaa tusmo wanaagsan u noqonaysa magaalooyinka kale in lagu qabto barnaamijyada hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee soo jireenka ah lagu soo celinayo xabibaladan raadiyaha telefishinka dowlad goboleedka Jubbaland magaalada Qardho.